habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa habeen jimcaha 7 bisha Agost sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadana caawana waxaa idiin soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. maqli doontaan idaacadayada fiidnimona waxaa kamida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo ra'iisul wasaaraha la filayo amaba laga sugayo inuu soo magacaabo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxaa muhiim ah in ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabayo madaxweynaha uu ahaado ra'iisul wasaare xor ah, qof ma arkaysa aan cid kale u hogaansanayn laakiin dastuurka dalka u hogaansan. haddii madaxweynaha soo magacaabo anigu kaliya kelimada aan tilmaamayo xita sharciga Soomaaliya wuxuu uu qabaa wasiirka koobaad waa in uu diyaarsadaa barnaamijkiisa siyaasadeed iyo tiimkii wasiirada ah ee la shaqeyn lahaa. Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran marka dhaqaale ka hadashid inta badan wadankeenu waxaa jira sideedaba trade off baa jira wax la yiraahdo in la soo saaro hub iyo in la soo saaro batar ama subag ama waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan qaraxii xooganaa ee ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida waxaa inoo haya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac. golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaano looya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go'aan uga gaadhaan in ooda laga qaado iyo in kale 400 ee maxbuus ee u dambeeyay ee ka tirsan kooxda Taliban si arrintan ay dariiqa ugu xaadho wadahadal toos oo ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaas Afghanistan. waxaana arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeedhay kadib markii su'aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dambiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu sii daayay isagoon samaynin wadatashi qaran. mas-uuliyiintan Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ah ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo ergey oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hogaamiyeyaal kale iyo weliba siyaasiyiin, kaasi oo dowladda lagu siin doono talo ku aadan waxa ay ka yeelaysa maxaabiistan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qaybgalaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. Mareykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabataynta hubka ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaadhay sanadkii 2015. hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaridad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a wadamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Mareykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan. hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan. arrintan Mareykanku uu ku raadinayay in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ku doodaya in Iiraan ay wado kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisanimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iiraan Brian Hook ayaa sheegay inay tahay cunaqabatayn lagu soo rogay muddo laga joogo 13 sano isla markaana Iiraan ay weli awoodo in ay u kala gudbiso hub badan bariga dhexe iyo weliba meelo kale oo ay gacan ku leedahay, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi haddii Iiraan sidani ay tahay waxay awoodaysay inay ku gaadho dariiqa madow bal malayse waxa ay awoodi doonaan dharaarta cad. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu abaabuli doono shir caalami oo lacag loogu ururinayo dalka Lubnaan, hase yeeshee waxa uu uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaanay heli doonin jeegag maran. Macron ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyay ee ajnabi ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee salaasadii ka dhacay dekedda Beirut, isla markaana gaadhsiiyey qaybo badan oo magaalada ka mid ah kagana tegay raad ah burburka dhismayaashii, baabuur gubatay iyo weliba boodh. Macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawinayo soo kabashada Beirut ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeedhay amar siyaasadeed oo cusub taasoo lagu bedelayo nidaamka aan haysanin kalsoonida dadka.
waxaana Macron waa madaxweynaha Faransiiska ee sidoo kale uu xusay in kaalmada dhaqaale ee Beirut ay tahay in si toos ah ay ugu tagto kooxaha gargaarka iyo waliba kuwa u baahan, isagoo sidoo kalena booqday dekada burbursan iyo waliba qaar ka mid ah xaafadaha burburku soo gaadhay, isla markaana dadka deegaanka u ballan qaaday in lacagta lagu bixin doono si cad oo aan la gelinaynin gacmaha musuqmaasuqa. ugu dambeyntiina xilli xanuunka COVID-19 uu dunida si xawliya ugu faafayo ayaa dalka India dadka xanuunku uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2 milyan oo qof, waxaana khubarada caafimaadka bulshadu ay ka digeen in heerka xanuunkan ee dalkaasi oo ah kan labaad ee dunida ugu dadka badan aanu beryahaasi hoos u socon. xaaladan adag ayaa timi xilli kumanaan qof oo ah howlwadeennada caafimaadka bulshadu ay sameeyeen 2 maalmood oo isu soo baxa oo ay ku dalbanayaan mushahar wanaagsan iyo weliba in aanay haysanin qalab ku habboon oo ay kula tacaalaan xanuunka coronavirus oo halistiisa leh. keliya 2 wadan oo kale ayaa dunida kor u dhaafay tirada 2 milyan, kuwaasi oo kale ah Maraykanka iyo Brazil, halka dalka Indiyana sida ay mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen uu hadda madaxa la galay 2 milyan iyo 3 kun oo qof. dhegaystayaal, warkiina waa naga intaas. aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka noo akhrinayay. aan ku horreynay Soomaaliya waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da'ay roobabka xilliga xagaaga. roobabka oo aad ugu xoog badnaa kuwii sannadihii hore ayaa waxa ay barakiciyeen 10 kun oo qoys, iyagoo baabi'iyey ku dhowaad 150 kun oo hektar oo dhulbeereeda. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan iskudubaridka gargaarka ee OCHA ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad 200 kun oo qof oo daadadku ay saameeyeen. Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo koobaya. daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 192 kun oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da'ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini'aadanimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da'ayeen. hay-adda bini'aadanimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska qaramada midoobay ee iskudubaridka arrimaha bini'aadanimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya roobabka xagaaga ee da'aya ayaa ka culus kuwii sannadihii hore, waxaana roobabkaasi wehliya dabaylo xoog leh iyo qabow. sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da'een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareeraysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150 kun oo hektar oo dhulbeereeda oo ku kala yaala ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaal ayaa ku dhintay, 100 kalena waxa ay noqdeen hoy la'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lamadegaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. Luuliyo 22keedii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdega wax uga qabtaan baahida bini'aadanimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saamaysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. OCHA waxa ay sheegtay in 15 milyan oo dollarka Maraykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota. mahadsanidkaas wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo warbixintaasi noo soo koobayay. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Lubnaan, qaraxii weynaa ee dhowaan burburiyey qaybo ka mida magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan
oo la sheegay inuu ka dhashay kumanaan tan oo kiimika ah oo ku kaydsanaa bakhaar ku yaala dekeda magaalada bayruud. waxaa la aaminsan yahay inuu qayb ka yahay musuq maasuq 10 sannadood ragaadiyey wadamada ku yaala bariga dhexe. waxaase xeeldheerayaashu ay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu saameyn fog uu ku yeelan doono dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. warbixin falanqeynaysa qaraxaasi iyo xaalada dalka Lubnaan waxaa qoray wariyaha VOA Jamie Detmer, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daandure. diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal ayaa sheegay in naxdintii markii hore ay isu bedeshay caro qaraxii weynaa ee ka dhacay dekeda magaalada Bayruud habeennimadii Talaadada ahayd. qaraxaasi oo burburiyey qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Lubnaan ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho dalkaasi saboolka ee ku yaala badda Mediterranean-ka, sida dilkii 2005 ee ra-iisul wasaarihii hore Rafiiq Xariiri. dilkii Xariiri ee 2005 waxa uu kiciyey kacdoonkii Sidar, waxaana uu qasbay ka bixitaankii ciidamada Syria ee Lubnaan, ballanqaadkii dimuqraadiyiintii nabadeed ee dalkaasi ee lagu xukumayay awood qaybsi kooxeed tan iyo dagaalkii sokeeye ee baabiya dalkaasi muddo 30 sano ah. xitaa ka hor qaraxa dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxa ay ka cabanayeen kana caraysnaayeen musuq maasuq, karti darro dowladeed iyo maamul xumada dhaqaalaha, sicir bararka iyo lacagta oo qiimaheedu hoos u dhacay, taasi oo sare u qaaday saboolnimada oo ay usii dheer tahay urka faafa ee COVID-19. dibadbaxyo ilaa iyo bishii Oktoobar ka soconaya dalkaasi ayaan waxba u dhimin siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha diinta. qaraxa ka dhacay Bayruud ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 145 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,000, iyadoo hoyla-aan qaraxaas uu dhigay dad tiradoodu ay gaarayso 300,000. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tegay dalkaasi Lubnaan ayaa markii la marinayay wadooyinka qaraxu uu baabi'iyey dad badan oo isu soo baxay oo caraysnaa ayaa waxa ay weydiisteen gargaar, kuwaas oo ku qaylinayay dowladdu ha dhacdo. Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi ayaa waxa uu muddo bilooyin ahba uu waday dadaal caalami ah oo loogu gargaarayo dalkaasi in uu la tacaalo jahawareerka dhaqaale oo beddelkeedana uu ku dhaqaaqo dib u habeyn siyaasadeed. Faransiiska iyo Lubnaan ayaa waxay isku khilaafeen soo jeedintaasi, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu la midoobay kooxda xagjirka ee Shiicada ee Xisbullah oo ku eedeysa Faransiiska iyo sanduuqa lacagta ee adduunka inay rabaan inay sumeeyaan Lubnaan. mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa waxa ay isku dayaan inay dejiyaan carada dadka oo sii kordhaysa oo ka dhalatay qaraxaasi oo markii horena ka dhashay ammonium sanado badan ku kaydsanayd dekeda oo la sheegay inuu dab ka kacay dayactir koronto kadibna uu ku fiday halkii ay ku kaydsanayd kiimikadaasi. aad buu mahadsanyahay Ibrahim Daandure oo noo soo koobayay warbixintii uu diyaariyey wariyaha VOA Jamie Detmer. haatan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Qadar Maxamuud Xareed. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkanna idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. barnaamijka waxaynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku guda jira la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa inuu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladdiisa kadib markii 25kii bishii hore ee Julaay baarlamaanka Soomaaliya codeyn ay sameeyeen ay kalsoonidii kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo? talo intee la eg ayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeelan karaa soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub? sidoo kale waxaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa dhibaatada dhaqaale ee ku geedaaman doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale. waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, Dr. Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhanka sharciga ah, iyo Ducaale Aadan Maxamed oo ah wasiirkii hore ee hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. waxayna dhammaantoodba ku sugan yihiin magaalada Nairobi. marka hore soo dhawaada dhammaantiin. aad u mahadsantahay.
su-aasha u horeysa haddii aan siiyo wasiir cabdiraxmaan, ra-iisul wasaare noocee ah ayaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu soo magacaabo? waa mahadsan tahay. horta waxay la tahay aniga waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabayo madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah oo madax bannaan oo karti leh, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn laakiin dastuurka dalka u hoggaansan. waxaan rajaynaa inuu noqdo ra-iisul wasaare khibrad leh iyo aqoon, technocrat oo manager ah, waxyaabaha hadda meesha yaallo dhaqaajiyo. waxaan rajaynaa inuu noqdo ra-iisul wasaare qanci kara dadka Soomaaliyeed, ay ku qanci karaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dunidaba ay u soo istaagaysa dhihi karta ninkan waa nin wax isku wadi karo. waxaan rajaynaa inuusan ahaanin ra-iisul wasaare ma arkaysaa dabadhilif ah oo cid u shaqayso inuusan noqonin. ra-iisul wasaare aan ku milmin siyaasadahan xun iyo dowladahan waxaan kuu sheegaa ku shaqaysta Soomaaliya oo aan u ahayn qof ma arkaysaa dabadhilif u ah oo siyaasadahooda wado inuusan ahayn. marka waxaan qiyaasayaa in ma arkaysaa qof saasa la raadiyo, aan laga fekerin qof ma arkaysaa qof taageersan oo xafiis un keliya uga shaqeeyo. aad umahadsantahay. waayahay, waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore hiddaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed. isla su-aashaas cabdiraxmaan uu ka jawaabay, maxay kula tahay? horta waa mahadsantihiin VOA iyo dhammaanna waxaan salaamayaa runtii dhegaystayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa in khalkhalkan siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqda ee dalkii iyo dowladnimada dib u dhiga mar un in laga gudbo. su-aashaasaas fiican adeer waxa weeyaan waxay la tahay mas-uuliyad qof qaadi karo. dabcan dastuurkaa tilmaamaya shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo sharcigaa tilmaamaya qofka shakhsiyaddiisa, laakiin guud ahaan hadda marxaladda aan marayno kala guurka ah mas-uuliyad qof qaadi kara oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedka iyo maxay ahayto guud ahaan shacabka iyo caalamkaba wax isku wadi kara oo leh dabeecad iyo mas-uuliyad iyo qiimo shakhsiyadeed ayay muhiim tahay marxaladdan moogtahay, oo aan dhegdheg ahayn oo khilaaf iyo mushaqada na ragaadsatay aanan ahayn wax uun qof xaggaas u riixmaya uu yahay qof mug iyo miisaan uu wax ku baalansi garayn karo, kuna maamuli karo awoodahan jiro ee siriqdan adag ee doorashada laga gudba qofkii ku habboonaa inuu noqdo ra-iisul wasaarahan ayaan rajaynaynaa. si wanaagsan oo niyadsami ahna guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo inta xilalka maanta haysto iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dastuuriga oo dhan waxaan ugu baaqayaa runtii in si mas-uuliyad ku jirto looga tashado in muxuu ahaa la isla helo go-aan qaadashada shacabka. laakiin si gaara waxaa u leh oo dastuurka u tilmaamaya qaadashada iyo xulista ra-iisul wasaaraha waa shaqo uu madaxweynuhu leeyahay, laakiin de madaxweynuhu waxaa laga rabaa wada tashi iyo inuu dadka waxgaradka oo talada wax ka siiyo si loo helo qofkii ku habboonaa maamulidda iyo hogaaminta dalka iyo dowladda Soomaaliya marxaladda kala guurka. aad iyo aad baad umahadsantay. waayahay, waan kugu soo noqonayaa dhanka sharciga marka laga eego tillaabooyinka iyo la tashiyada uu samayn karo madaxweyne Farmaajo si uu usoo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan dalka uu yeesho. waxaan kusoo dhaweynayaa garyaqaan Zakariya Yuusuf. maxay tahay tillaabooyinka dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka si loo helo maadaama dalkii xaalad kala guura uu xilligan ku jiro iyo ra-iisul wasaaraha cusub? bismillahi raxmaan raxiim. VOA iyo saaxiibada kaleba oo dooda ka qaybgelayna waa wada salaamayaa. horta waa awood dastuurka uu siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu soo magacaabo wasiirka koowaad, oo wasiirka koowaadna magacaabistiisa uu u gudbiyo baarlamaankana waxaa laga raba waxa ay tahay inay siiyaan codka kalsoonida. marka laba arin oo waxaa jiro sistamka uu isku dhexgaldaay. wasiirka koowaad madaxweynaha marka uu soo magacaabo baarlamaanka sida sharciga uu qabo waxaa loo gudbinaa wasiirka iyo golihiisoo dhammaystiran oo ay la socdaan brograamkiisa siyaasadda dowladda iyo ajandayaashiisa waxqabadkiisa. marka waxay baarlamaanku ay siinayaan codka kalsoonida ma aha shakhsiga ee waxay siinayaan brograamka siyaasadeed uu la imaanayo iyo tiimka la shaqaynaya.
markaas brograamka siyaasadeed marka ay siiyaan hadhowdii waxa lagu kontaroolayo oo baarlamaanka oversightka ay leeyihiin la leeyahay waa wixii uu soo bandhigay ay ku kontaroolayaan ma qabteen mase ma qabanin. waxaa dhacday in hadda ra-iisul wasaarihii horeeyey isagaa la geeyey isagoona brograamkiisa siyaasada hordhigan. brograamka siyaasadeedna wuxuu ballan qaada gadaal inuu ka keenayo waxyaalaha kale daadada dhacaya number one ka tahay. waxa la raba inuu ilaaliyana waa madaxweynaha dastuurka uu siinayo inuu ilaaliyo. xulista haddii la fiiriyo habka demokraatikada xisbiga aqlabiyadda iska leh ayay madaxweynaha uu shardi ay ka tahay inuu ka soo xulo. laakiin hadda ma jiro xisbi aqlabiyad leh, xisbina looma fadhiyo. marka taas marka waxay ku xiraanaysaa madaxweynaha cidda uu u arka kabasitiga in ay fulin karto howshaasitood inuu u magacaabo. dastuurka ama xeer hoosaadyada cid uu amraayo uu leeyahay kala tasho ma jirto oo cad, laakiin wuu gelin karaa la tashi. waxgaradka kale, siyaasiyiinta kale la tashi waa ka geli karaa. laakiin waxaa jiro wax la yidhahda requirement of law and non requirement of law. qodob qasbayo oo dhahayo ma kala tashatay afhayeenka baarlamaanka, ma kala tashatay hebel ma kala tashatay qodob amraayo oo si expressa uu ugu jiro sharciga ma jiro. waayahay marka laga soo tago dhanka xaaladda kala guurka iyo siyaasadda qasan ee dalka ka jira, waxaa taas barbar socota dhibaato dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta. dad badan baa la dhibaataysan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. ilihii dhaqaalaha ee waddanka weli waa ay burbursan yihiin. waxaan ku soo dhoweynayaa doctoreso hodan siciid ciise oo ah aqoon-yahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha, sidoo kalena ah xubin u dooda arrimaha haweenka. markaad fiirisid xaaladan kala guurka ee dalka uu ku jiro, dhaqaalaha la haysto, sida doorashada la filayo loo qabto, dhaqaale ma kula tahay ku filan dalka inuu xilligan leeyahay? bismillahi raxmaan raxiim. anna sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed. waxaan ku mahad celinayaa voice of america inay maanta nagu casunto halkan. soomaaliya waxay ku jirtaa wakhti cakiran. markaad dhaqaale ka hadashid, inta badan waddankeenu waxaa jira sideedaba trade off baa jira wax la yidhaahdo, in lasoo saaro hub iyo in lasoo saaro batar ama subag ama food. dadku waa gaajaysan yihiin. gaajada ka sokow faqriga aad iyo aad aynu ka midnahay wadanka ugu faqriga badan adduunka, aynu ka midnahay wadamada. marka runtii dhaqaale badan oo hadda jiraa ma jiro. waad og tahay cashuuraha lama ururiyo oo si sharciya loogama ururiyo wadanka. in badan baa waxaa haystaa qolooyinkii xagjirka ahaa, kuwa xitaa maamulada jira sistamkii cashuuraha oo wax lagu ururin lahaa. aad leedahay dhaqaale ma la helaya, wuu iska yaryahay. dhaqaalaha aynu helnaa inta badan wuxuu ku salaysan yahay macaawimada laynaga siiyo adduunka. macaawinadana waxaa daba socda waa dhowr nooc. qaarwaad humanitarian, qaar waa iyagu siyaasad donor interest baa la yidhaahdaa. siyaasadooda ayay kugu fulinayaan inaad adigu maaragtay waxaasina ma gaadhaan dadka masaakiinta ah ee malaayiinta ah ee hooyooyinka ah ee caruurta ah ee webi ku fatahayaan ma gaadhaan. hadda waxaan keenay soomaalidii inay iyagu isu xilqaamaan oo dadku markay fatahaan waxu ururiyaan. bal waynu ognahay gacan private ah inaanay dadku ka dhergin. waxyaalaha ay dowladdaadu kuu qaban karto waxaa ka mida markay dhibaato dhacdo in laguu soo gurmado. waa laysu soo gurmanayaa, dowladdu waa cararaysaa, laakiin dowladdu waxaa weeye waa inay ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaal, waa in la sameeyo system waxaasoo lacagoo wadanka soo gelaya, qayb humanitarianka loogu talagalo oo dadku markay dhibaatadaasi dhacdo maaragta. marka kolley wakhtiga kala guurka waa iska cakiran tahay. arrimaha biniaadminimada iyo waxaas waxaad moodaa ina gadaal loo riixo, laakiin dee waa muhiim, waana qodob aad u muhiimsan oo soomaaliya loo baahan yahay inay ajendaha priority-ga ku darsadaan. waad mahadsanta. dhanka marka laga fiiriyo arrimo badan oo qabyo ah ayaa jira oo dowladda hadda jirta u yaala. waxaa ka mid a deyn cafintii oo ra-iisul wasaarihii hore uu dhaxda uga tegey, batroolkii oo dhinaca kale barbar socda. marka arrimahaas o dhan markaad fiiriso iyo wakhtiga haray, maxay kula tahay in lagu qaban karo? horta runtii soomaaliya waxaa ka maqan waxaa la yidhaahdo supremacy of the rule of law, saraynta sharciga wadanka lagu xukumo. hadda waxaad moodaa waa inay jiraan inay kala soocan yihiin hay-adaha dowladdu.
waa inay qolada sharcigu tahay, qolada executive-ku ay separate tahay, maxkamaddu ay gaar tahay. marka waxaasoo dhamma isku milmaan shuruucda la soo saaray. hadda batroolka kale haddaad ka soo sheekaysid, Soomaaliya waa wadan fakhri ah, batroolkan xitaa dhulka ku jira in laga maarmaa laga yaabaa 20 sannadood. waa waqtigeedii waa la joogaa, laakiin aaway shuruucdii, aaway political consenskii. dadka la siinayo batroolka miyaanay Soomaali ahayn, miyaan lagala tashanaynin? aaway sharcigii resource sharing ahaa oo maaragtay dastuurkeena inoo yaalla ee qabyo qoraalka ah wuxuu ka hadlaa dhowr sharci oo ay leedahay federaalku. waxaan leeyahay arrimo ay federaalku leeyihiin iyo arrimo ay u leeyihiin maaragtay maamul goboleedyada, iyo waxyaalaha resource sharingka oo adu batroolka aad ka hadlaysid. waxa weeye sharci xataa fiican oo ka hadlaya dastuurkeena kuma yaalo. marka waxa weeye aan waxaan aaminsanahay waa la ogyahay batroolka in loo baahan yahay, waa la ogyahay inaan wadanka ugu gaajaysan nahay, laakiin ma laga yaabaa helitaanka batroolku inuu civil war kale oo inu isku baabi'ino uu inoo keeno, maadaama wax shuruucoo ina hagayaa jirin. constitutional court ma jiro maanta. haddii bari lays qabsado qolada laga helayo dhulka waqtigii siyaad bare dhulka dowladda lahayd hadda yaa iskale. waxyaalo badan oon aaminsanahay in loo baahan yahay in laga hormariyo khayraadka iyo qaybsigiisa. sidee loo qaybsanayaa wadamada, magaalooyinka, degmooyinka, gobolada aan lahayn resourcesku intay yeelan doonaan, regionku intuu yeelanayaa, federaalku intuu yeelanayaa. waxaasoo dhan sharci ma haysano, formula ma haysano. hadda xataa shuruucda batroolka ee jooga ma loo wada dhan yahay oo siyaasad wada dhan? haddii kale waxay noqonaysaa maalin kasta inta wax la taabto la isku qabsado. Soomaaliya waxaan aaminsanahay resourcesku waa waxa dadka isu keena, dhibaatada u keena. wadamada adduunkana waa loo yahay wuxuu keenaa civil warka ugu daran. Africa oo resources ay tirada ka bateen, meel kasta gaaja ka jirta, waxaana keenay sharci darrada iyo is-aaminaad la'aanta. wadankii oon is-aaminsanayn, iyadoon political consensus jirin. anigu batrool hadda oo waqti election lagu jiro, ama ha la kordhiyo ama ha la yareeyo ama waqtigiisa ha lagu qabto, in hadda batrool laga hadlo, anigu as an economist waxaan u malaynayaa inay xoogaa ay keeni karto trauma iyo problem iyo war iyo dagaal inay keeni kartaa suurtagala. haddaan shuruucdii jirin, constitution court jirin, waxaa laga yaabaa inay maaragtay inay dhibaato inoo sii horseedo. laakiin waxaa u fiicnaan lahaa in hadda arrinta electionka iyo wadankii oo la isu keeno iyo dadkii oo la heshiisiiyo, oo at least mabda toosan oo election oo la isku garto, kabacdina roolku intaas inoo aasnaayo kabacdi waayo waan kugu soo noqonayaa Dr. Hodan halkaada ii joog. wasiir Cabdiraxmaan baan markaan u tagayaa. wasiir, sanadihii ama dowladihii u dambeeyey oo dhan waxaa aad u jiray khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareyaashii dowladihii dalka soo maray. buuqii hadda u dambeeyana dabcan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida la wada ogyahay arrimaha doorashada iyo xaaladan kala guurka ayuu ku salaysnaa. ma kula tahay in madaxweynuhu uu keeni doono ra-iisul wasaaro ay isku fikir ka yihiin arrimaha doorashada? aada umahadsan tahay. horta waxay la tahay aniga madaxweynaha inuu raadiyo qof asaga ma arkaysa ku fikir ah oo asaga u nacamleeyo waa khalad weyn uu samaynayo. waa inuu keenaa qof xor ah oo maxaan kuu sheegaa asaga aan u hogaansanayn, laakiin dalka dastuurkiisa iyo awooddiisa u hoggaansan, xaaladda jirta ma arkaysa wax ka qaban karo. taasaa muhiima. haddii horaan u sheegay uu ka fikiraya madaxweynaha in ma arkaysa cid u nacamleeyo uu raadinayo, dee waxaa ku filan inta hadda xafiiskiisa joogto oo aan waxa ka dhacayo dunida iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed oo dal iyo dibadda ay soo bixinayaan aan gaarsiinaynin oo si kale wax ugu sheegaya. marka waxaa loo baahan yahay qof muhiim oo weyn oo sida ma arkaysa wasiirku u sheegay daayati mug iyo miisaan leh, sharaf leh, aqoon leh, dalka fahansan. marka ugu dambaysana dabadhilif aan dowladahan ma arkaysa Soomaaliya siyaasadooda galgalayo aan ahayn. marka arrimaha marka la eego kala guurka xaaladda dalka uu hadda ku jiro, wakhtiga haray oo aad u kooban, oo haddana laga sii yaabo in magacaabista iyo ansixinta ra-iisul wasaaruhu uu wakhti kale sii qaato, maxay kula tahay marka dib u dhac ma imaan karaa bay kula tahay? horta waa mas-uuliyad darro weyn oo ma arkaysa ka timid xagga madaxweynaha, waayo asaga dalka u sarreeyo. waxaa la siiyey 4 sano, wuu ogaa dastuuriyan iyo sharciyanay u tahay. waxay ahayd waxaani intaysan dhicin ka hor inuu gaarsiiyo mandate-ka ugu weyn oo haasta marka waxyaabaha la qabanayo xukuumadda ay qabanaysa laga daayo. waxay ahayd dalkan asagoo ma arkaysaa meeshuu shalay ugu yimid siyaasaddii oo heshiiska laga ahaa uu isku sii wado
marka ugu dambaysana uu soo diyaariyo qaabkii ma arkaysa markii muddada ay dhammaato uu u keeni lahaa qaabkii laysku dooran lahaa. aad u mahadsantahay. waan kugu soo noqonayaa ducaale, ma kula tahay in madaxweynuhu iyo mas-uuliyiinta dowladdu ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladan dalka hadda uu ku jiro iyo doorashada waxay noqon karto? horta waa mahadsan yihiin saaxiibadayna, waa mahadsan yihiin runtii dooda sida u dhigeen, laakiin hal nidaamka dowladnimo ee burburka kadib hadeertaan la dhistay 20 jirsaday iyo noocii hore ee dowlad noo jiri jiray way kala duwan yihiin. waxaad arkaysaa dadku markay hadlaan, macleish wasiirka saaxiibkeena waan ka raaligelinaya, waxaa la leeyahay madaxweynaha. dastuurka iyaga haddaa aragtid iyo nooca dowladnimo ee lagu heshiiyey ee federaalka ee noo qoran, madaxweynuhu xayndaabka dowladnimada wax yar baa ugu jira. waxaa la sameeyey hay-ado badan, 3 hay-adood oo waaweyn oo fulin iyo sharci dejin iyo garsoor isgarab socda, oo shaqooyin kala duwan oo isdhammaystiraya oo iskontaroolaya dhammaantood ay wada leeyihiin. waa lagu sii kalsoonaan waayey awood dowlad dhexe oo dalka maamusha. waxaa la go'aansaday si dastuuri ah lagu heshiiyey in maamulkii la daadajiyo oo maamul goboleed iyo dowlado deegaana la samaysto. waxaasoo dhan waxaa laga cararaya awood meel ku aruursan oo hal nin fadhiya oo madaxweyne la dhaho oo la eedeeyo oo wax laga sugo asaga baa la diidanaa. ma jirto taas. madaxweynahan hadda joogaanan lahayn kaalintaas, kuwa ka horreeyey baan lahayn, kuwa soo socdaan lahayn ilaa dastuurka laga bedelo. waxa ugu qoran xeerka ugu qoran ee dastuuriga ah maba laha eeddaas. eeddaa waxaa iskale dowladda oo dhan. baarlamaanku hadday eed jirta wey, baarlamaanka qaybtiisuu leeyahay, xukuumaddu qaybteeday leedahay, hay-adaha kale qaybahooday leeyihiin. waa mas-uuliyad la wada leeyahay. taas halkaasaan uga baxaya. qodobka kale oo muhiimka ah, waxaan aad u maqlaa oo aan doodo badan iyo rag waaweyn oo odayaalaho dalkan ka taladiisa iyo wax badan kusoo jiray aan ka maqlaa waxyaaba runtii markaan dhegaysta aan israahdo caqligii maxaguu aaday moogtahay. haddii aana lagu ixtiraamin cid kastoo markaa xukunka iyo talada loo dhiibto la doorto, ilaa inqilaab la iskuma qabsan, oo aan fursadda la siin, oo aan talo fiican la siin, oo hadda qadinaysood ka hor imanaysa si cilmiyeysan oo dowladnimo lasu mucaaradin, waxaba waa iska kharimayaan. nuxurkaana ka tegaya fiiri dadban waan u soo joognay, mas-uuliyiinna waa u hayna, xilal baan u haynay. laakiin waxaa la leeyahay 4 sano ayaa waqtigaa la haystay, waxbaa la qaban karay sida cabdiraxmaanba uu qabo. arrimahan doorashada waxay ahayd in xilli hore lasoo yaa ku dhahay hadda wax lama qabanin, yaa yiri wax lama qaban oo waxbaba ma qabsoomin, yaa yiri xaggee taallaa. waxaan haynaa hay-adaha ku shaqada leh oo xukuumaddii iyo doorashada xukuumadda oo golaha wasiirada, baarlamaanka federaalka iyo hay-adda u xil saaran dalka Soomaaliya doorashada ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada, dhammaantood waxay isku raacsan yihiin oo ay sharciyeeyeen oo ay ku dhawaaqeen oo ay sameeyeen doorasho in diyaar loo yahay. soo garan maysid oo doorashadii diyaar loo yahay bay dhammaan hay-adihii loo diray shaqadaas ee dalka ku matalayay dhammaantood waa isku wada raacsan yihiin. ilaa iyo hadda kama hayno eeg hadda u fiirso, walaa golo wasiir, walaa baarlamaan, walaa guddi doorasho cid la soo istaagtay doorasho ma qaban karno. laakiin nooca doorasho iyo wakhtigiiyo yar iyo arrimahaas lagu wareersan yahay. adeer waxa weeyaan feeri gabadha mas-uulka ka ah guddigaas doorashada oo la yidhaahdo Marwo Xaliimo way hadashay maalin dhaweyd, si milgale u hadashay. waxay tiri anaa la igu ogyahay mas-uuliyadda feeri oo doorashada. cid kasta oo Soomaaliya oo dareen ka qabta inaanay doorashadu habkii iyo wadiiqadii loogu talagalay ku soconin waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto oon kala doodo oo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay arkaan aan ka wada hadalno. wuxuu yidhi hashu maankayga gaday masaar bay laqday. wax kalaa muuqda. mushkiladdu ma aha doorasho lama qabanayo, doorasho ma socoto. arrinku sidaa ma aha. arrinku waxa weeye jiq kusii ereyga la dhaha mataqaana ciyaalnimadii ma soo marti qofkaa waxa uu wato ka carqaladee kan ka rid ka waxaas ka hadlee ayay siyaasadda iyo dowladnimada aan u fahmnay. sidaasna sax ma aha. anu dowladdan kama tirsanay, xitaa meel yar kama hayo, mana ka mid ihi tiimka, laakiin dowladnimadaa lex jeclayga haysaayo aan waddankaan leh. xilka qofka maanta hayanu berri u tegaya. waxaan diidanahay in si wax magarada loogu cayaaro sistamkii iyo magaciisigii ma ah. dadban ereyga ah baan kugu sheegaya oo hadda loo mindiyo tumanaya. dad badan aan ka maqlayn ayagoo sheegay dadban waataan u soo joogna, wax cusub ah oo u soo taagneen. dadban intii qiimaha badnayd ee Soomaaliya ee baarlamaanka federaalka ku jiri jirtay dadka bannaanka lagu tuuray. waxay soo qortay baarlamaanka maanta ay caayayaan oo la weerarayo ee la dhaliilayo waxaa keentay dadban.
ma nin odayoo xaafad haystaa inta loo geeyo laleeyahay aduu soo qor baarlamaan yuu soo qoraya qof macno leh oo soo garab istaaga ma rabo marka sidaas darteed waxaa loo baahan yahay inay si fiican u kala caddaato haddii adeerday xukuumaddii ay golihii wasiiradu dhahaan doorasho ma qaban karo oo golihii baarlamaanku yidhahdo doorasho ma qaban karo oo la yidhahdo shuruuc diyaar ma ah oo la yidhaahdo guddiga doorashadu dhahaan farsamo ahaan diyaar uma nihin waa mushkilad fiira laba heer weeye heer waa siyaasadda jaangooyinta siyaasadda shuruucda hagidda waxaa iskale golayaasha dowladda ee dastuuriga ah walaa maamul goboleed baan lahayn walaa nin xisbi sheeganayo geed hoos fadhiyaan lahayn oo caytamaya walaa cid kale aan lahayn hay-ada dastuuriya oo dalku leeyahay loo diray baa shaqada siyaasadda samaynta iskaleh farsamada guddigaas doorashada ee muddo hore la sameeyey oo diyaarsan intaan xogta u hayo ayaa iskale farsamada fulinta doorashada iyo qabashadooda dhammaan hay-adahaasoo dhan waxay isku raacsan yihiin wax waliba inay diyaar u yihiin waan ka baxay waan kugu soo noqonayaa dhegaystayaal haddii aad goordhow nagu soo biirtay waxaad naga dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi markana waxaan u tegayaa abukaate zakariya yuusuf markaad fiirisid soomaaliya oo muddo badan dagaalo ku soo jirtay nidaamyadii xisbiyada oo aan weli dhammaystirin maaragtay awooddooda xisbinimo ma kula tahay soomaaliya inay xilligan ka qabsoomi karto doorasho qof iyo coda bismillahi raxmaan raxiim horta markuu hore waxaan jeclaan lahaa hal kelima inaan hormarsado aniga looyarnimadeeda dastuuran ku takhasusay high diplomna waxaan ku haystaa electoral law soomaaliya election ma laga qaban karaa maanta haddii la yidhaahdo oo qof iyo cod ah ma laga qaban karo qofkii dhahayana waa qof aanan aqoon lahayn ama haddii kale dan uu leeyahay oo isaga gaara uu leeyahay uu ogyahay ay tahay soomaaliya haddii aan soo kooba idaacado badanna waa iga waraysteena 5 arrin ayaa saldhig u ah si kooban number 1 somalilan intay maqantaa dalka ka maqantaa doorasho oo uniform ah oo dalka dhan laga qaban kara ma dhici karto haddii qayb ka midana doorasho laga qabto oo nooca qayb kalena constituencygeeda iyo representativekeeda si kaloo loo qabto taasna waxay dhaawacaysaa legalitiga waxay noqonaysaa vizia de la legalita wax la dhaho waa kow labo soomaaliya qayb ka mid ahoo ballaaran shabaabaa gacanta ku haya intii shabaab dadkaas ay hayaanna aanan dhulkaasna doorasho laga qaban karinna iyadana qayb ka mid aha dalkii maqan haddii ay maqan tahay marka iyadana waxay noqonaysaa viziata dalaleejay noqonaysaa waxayna noqonaysaa legitimada non biena dala legitima wax la yidhahdo waxa soo baxa xataa sharciyad ma yeelanayaan midda saddexaad oo imaanayso doorashadu waxay leedahay shuruudo iyo xuquuqo oo democracy systemka lagu bartay waa number 1 inay axsaab joogaan axsaab diyaara dalkiina ma jirto oo sharcigii xisbiyada lama diyaarinin vetinkii laguma samaynin goobaha ay joogaan lama yaqaano akhri sharciga xisbiyada ma hayno qodobka saddexaad doorashadu waa in xisbiya markay ka qaybgalayaan qodobka afraad sooma markay ay ka qaybgalayaan waxaa laga maarmaan shardiya inay ahaato system dimuqraatiga xisbiga hadda waxaa fiilinaysaa lowga la yidhaahdo sharciga doorashada qodob cad oo wuxuu ku leeyahay doorashada saldhig waxaa u ah 4.5 mana isqaadanayso democratic system oo 1 person 1 vote oo universal service election ah iyo in la respect gareeyo doorasho oo 4.5 ma isqaadanayso waa kan afraad oo isdiidaya kan shanaad dalkii isla hadda ma jiraan institutionno capacity u ah in ay si dhammaan uga wada fidiyaan ay doorasho isku mid ah oo isku qaaba laga qaado waxaa soo haray marka haddii la rabo doorasho hal qof iyo hal cod ah in la qaado 5taas shardi oonu dhaqaalaha ku jirnoon gabadha aan u dhaafay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sida looga baahan yahay aan u dhaafay doctoreesada 5taas shardi ninka dhihi kara maanta ee aqoon u leh ma sheegaana qof siyaasadda iskaga murmaya soomaaliya xataa kuma qaban karta 10 sano hadda soo socoto doorasho hal qof iyo hal cod somalilan waa in horta kow la keenaa 2 waa in shabaab la bixiyaa 3 waa in dalka la tirakoob dhaco 4 kaar la siiyo oo muwaadin ah
kaarka muwaadinka markii uu qaatay registration della votazione la register gareeyo registrazione della votazione markii la gaaro waa in laga heshiiyaa daseja halkee la dhigaa locazione della seja markii laga heshiiyo locazione della seja markaasituna borderka la xiro oo demarcation della border la sameeyo adeer wax dhow maaha haddii qofka una aqooninna aad waxaa u fiican inuu ka gaabsado oo uu gadaal kaga istaago siyaasadda aniga ma jecli shaqana ku meli waa ka baxay kamidda labaad oo haddaad su-aasha aad weydiinaysa saaxiibadaada madaxweynaha soomaaliya dastuurkeenna wuxuu si cad u sheegayaa awoodda maamulka executiveka waxaa iskale dowladda si toosa dastuurkeenu tilmaamaya dowladdana waxaa oversight kuleh oo control dabagal baaris su-aalo weydiin kuleh baarlamaanka cilad kasta ee dalka ka dhacda baarlamaanka iskale cilad kasta aniga magacta ma la baqanayo qodobada ka bilaaba 60 ilaa iyo dhammaad ka gaaraya soomaaliya baarlamaankeeda awoodda la siiyey in la daahiyo sharciga doorashada baarlamaankaa sabab oo la soo saaray December 2019 in la daahiyo sharciga xisbiyada baarlamaanka shaqo kule madaxweynuhu sharci abu xayir madaxweynuhu ma daraaf karay sharciyada mana bedela mana sameeyo proposalka xataa isaga shaqo kuma la proposalka golaha wasiirada leh in baarlamaanka askale haday Soomaaliya wax ka halaabeen baarlamaanka maanta ku qaylinayo wala ma qaban karo doorasho waqti ha lagu dara ayaga iskale ayagana mas'uuliyadda iskale madaxweynaha hal sharci laga rabaa waa ilaaliyaha dastuurka iyo isku hayaha hay'adaha dawladda waa lagu dhaliili karaa laakiin aniga ninka ku dhaliilaya ma ihi dastuurka ma una ilaalinin oo baarlamaanka lama diririn la barlooma baahno laakiin dhaliisha koobaad oo aabe iyo hooyo Soomaaliya waxa ay ka fadhido oo ay ka baabacday oo ay ka degila adag waa baarlamaanka Soomaaliya waa halka ay joog waan kugu soo noqonaya Dr. Reese Hodan beesha caalamka oo dhaqaalaha badan ku bixisa Soomaaliya dhawaan way ka biididay xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaare Khayre marka maxay kula tahay in dhaqaalihii iyo taageeradii doorashooyinka iyo Soomaaliya ay ku bixin jireen inuu maxay kula tahay horta Soomaaliya ma aha wadan u madax banaan waxyaalo badan waayo dhaqaalaha marka lagu siinayo hadiyo jeer waa lagu leeyahay waxaanad ku garanaysaa in Soomaaliya leeyahay anu waxaan aaminsanahay hadda Soomaaliya inaanay Soomaalidu lahayn markay shalay isleynayeen iyagu ishaysteen oo intay geed fadhiistaan ka wada tashanayeen laba dhinoo Soomaaliyeed waxay ahayd ama laba qof oo Soomaaliya hadda Soomaaliya meel kasta iyo gobol kasta iyo wala federal wala state wala meel kasta waxa ay nagula jira hay'ada adduunka oo dhan baa nagula jira kuwa laga yaabay interest-kooda waxaan interest ahayn ma jirto ay wada u joogaan kuwa xitaa bini'aadminimada iyo Soomaaliya inay isku soo noqoto institutions ka caawinaya كل أفل قفك العكو سيو مركز هو يدا أدوية ستة دين مركز بنك جويد ستة دين وكل دوين والد كاو كفرية محد كسمين لكن هذا دون يسد إن بنك جويد ستة وحيالك كله بس ده حبال جويدينية مركز قفك العكتك السينيو وما معاونة كسينيو وما مدح بناند مركز ويكبي يديدن وارون وعي السيد يقول عضي تدبضن الصومالية وحل مفلعنا بين نقطي وحل جيا بقى إن يجنا شاك ونقطي وحنا عديستين موقف كودي ده و stakeholder way international community ياس العجاء بحيان كل العجاء وحتى خاصة بحيا يكون العجاء مالها يسومران لو جه مالها يسومران مركب كوا هذا العقد election وكله ما جران كرو كل وحي ربان وحي ربان وإن كاركود consensus وين يشران هذا هو international community Somali stakeholders كودو ويبدأين ومعمل قبلادية هذا دو سمراب أكورد وادوجيد dad Soomaali oo dhan baa ku farxay inay Soomaaliinta isku timaado ay wax ka soo baxaan marka wadankeenu waan ku celinayaa mar kale xarbul ahli buu soo maray muddo badan waxa lumay isku kalsoonidii marka waxa kaliya isku kalsoonida dhisi kara waxay noqonaysaa sareynta sharcigu dadkii bay kala saarayaan kii qaldanaa waad qaldantaa la odhanayaa kii saxsanaa waad saxantaa la odhanayaa haddii sharciga laga boodo oo sharciga la baalmaro ama international community ha soo galaan ama saaxiibadeen dariska dawladaha dariska ha soo maraan ama kuwa kale ee iyagu danta gaarka ah khayraadkeena arkaya ha soo maraan waxa weeye ma dhacayso wax la dhaho trust buildingna ma jiro kalsoonidiina ma dhacayso Soomaaliyana hadda runtii waxay ku jirtaa waqti cakiran doorashooyinkii baa waqti yar ka harsan yihiin
anigu hadda ilaa iyo hadda way jiraan models 1 iyo 2 iyo 3 oo one person one vote-ka ah. doorashada dadban waa ku raacsanahay. doorashada dadban wax badan oo dhibaato badan baynu ka darsnay oo nimanka gacanteena ku haysanaa. laakiin the solutionka markii dadkii fadhiisan lahaa oo sharciyan iyo maamul iyo lahaanshaba lahaa, soomaalidoo dhan baa wada leh, laakiin soomaalidu dad bay caretaker uga dhigatay. dadkii miiska ma wada fadhiyaa, ma laga wada hadlayaa, process transparent ah ma yahay, accountable ma yahay, haddii la isqabsado maxaa lagu kala baxayaa, sharcigee lagu kala baxayaa, yaa sharcigaa iska leh, sharci dadka u dhexeeya oo dadku marka hadhow isqabsadaan oo wixii ka soo baxayay aan dhinac loo marsiyayn ma jira waxaas. soo waxaasoo dhan baa u baahan processka in laga fikiro. waqtigu waa yaryahay, kharashku waa yaryahay, waxaynu ku jirnaa waqti xun oo problemo dabeeciya ay waddankeena haystaan. marka waxa weeye waxa fiican in dadka meesha talamaya miiska lagu talamayo dadka fadhiya inay dadka Soomaaliyeedna u naxaan, dalkana u naxaan, qori isku dhiibkan iyo maaragtay waxaana laga fikiro. marka anigu waxaan aaminsanahay runtii ragga Soomaaliyeed baan ku celinayaa oo maamulada waddanka Soomaaliya u haya waa inay ka fikiraan hooyada maanta beledweyne biyaha caruurteedii darmadiina madaxa ku wada, ilmihiina saabka ku haya, intay qofna ka fikiri lahaa dantiisa waqtigii political interest gaara laga fikiri lahaa maaha. waa waqtigii intay isku yimaadaan waxaa waddanka iyo dalka u roon oo intaasoo milyan oo Soomaaliyeed ay soo eegayaan. waxaan aaminsanahay qofka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya iyo waxa iyagu miiska fadhiya intuba inay ka fikiraan sidii xal degdeg loogu heli lahaa arrimahan cakiran maanta dhinac kastay ka cakiran yihiin. waa mahadsantahay Dr. Reso Hodan. gabagabadii waxaan u tagayaa Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, maxaa ku soo gabagabanaysaa fariintaada? aada u mahadsantahay. aniga waxay ila tahay horta wax walboo la samaynayo daahfurnaan iyo wada tashi inay u dhacdo. taasina waa wax hadda laga laayahay madaxweynaha. dadku aad u shakisan yihiin aamusnaantiisa iyo hoostaas uu ma arkaysaa wax ka wado walwalay keenaysaa. marka dadka inuu la tashto, dalka aan dib loogu soo celinin qolaadihii iyo fowdadii iyo dagaaladii sokeeye laga soo baxay waa inaan dib loogu soo celinin. aad u mahadsantahay. waayahay ugu dambayntii Ducaale Aadan Maxamed ayaan siinayaa. aad baad u mahadsantahay. horta shay dabiici wey. dadka waxaan Soomaalida ka codsanayaa u soo jeedinayaa in la fahmo adduunkao dhan waa iska caadi xilliga doorashada markii la gaaro isku dhexyaacbaa iyo inay howlahoo dhan ay wada noqdaan iyo dadka ay dareenkooda aad u kaco. horta waa shay normaalo iska dabiici, taas in maskaxda lagu hayo. waxaan soo jeedinayaa runtii aan anigu ku dardaarmi lahaa 20 sano waa qaangaar. waxaa la yidhaahdaa 3 toddobaad weeye. toddobada u dambaysa waa 21 laga gaaro, caaqibada laga waayo naf male. marka waxaan ku jirnaa xilligii qaangaarka ee dowladnimada iyada dib u dhiskeeda. sidaas darteed doqonnimada waxaa ka mid a in wax uun lagu celceliyo natiijadiisa la iska sii yaqaan inay meesha lagu lumeeye tahay. waxaan rabaa markan aan ku baaqayaa bal in wixii hore ee naqaanay ee sida noo galay inaan ka gudubno markan hay-adaha dastuuriga ah in la aamino lagu aamino xilligan kala guurka inay dalka hogaamiyaan oo ku hogaamiyaan habkii looga bixi lahaa kala guurka oo xukuumadda, golaha wasiirada, baarlamaanka, madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee muxuu ahaa farsamada iyo maamul ee sida guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo guddiyada kale ee ku shaqada leh in la aamino, gacanna lagu siiyo, khaladkoodana la qabto oo laga saxo, waxay ku saxan yihiinna lagu dhiirigeliyo. meeshaas inay noqoto meesha dalka isbeddelkiisa u keema aysan noqonin nin asagaba magaalo jooga oo le maamul baan madax ka ahay oo gobollada kale iyo degmooyinka aanan war u hayn oo isagu raba inuu dad soo qorto oo uu rabo samaysto oon horey u aragna intaasoo sano inaan waxaa dib loogu noqon. moodhalkan markan hadda sanadkan aan doonayno waxa weeye aan rabno anugu ay aragnimadeedu i barayso waxa weeye in marka kan la tijaabiyo oo caloosha la gufaysto, la aamino hay-adaha dastuuriga ayaguna ay si mas-uuliyada oo nidaamka iyo dowladnimada waafaqsan ay dalka samata bixintiisa doorashada ay ku shaqeeyaan. waxaan runtii aad iyo aad u mahadnaqayaa saaxiibadan dooda ka wada qaadanay iyo VOA aan ugu mahad celinayaa martiqaadka sharafta leh. waxaan rajaynayaa dalka iyaga oo doorasho xalaal ay ka dhacdo. ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda la sugayo waxaan aaminsanahay ma keeni doono qorshe cusub iyo xukuumad cusub oo hadda la dhisay iyo aragti cusub ma aha. waa projecti dhammaystir ah. gabagaba hadda la marayaa inta dhiman nidaamka doorashada iyo dhammaystirkiisa fal ah inuu la imaado iyo xukuumadda cusub iyo sistamka cusub aan ka rajaynaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. abukaata Zakariya, si kooban hal meelan gocdaa oo aan markasta dadka Soomaaliyeed markay hadlayaan si technical in uga hadleen. guddiga madaxa bannaan ee doorashada
waa guddi maamul ee ma aha guddi siyaasadeed. Soomaaliyay barta war barta idinkana hadhowda ha ka jarna ereygaan. Waa guddi maamul, guddi siyaasadeed maaha. maalin dhoweed baarlamaanka markay hor tageen guddiga waxay soo jeediyeen labadaa moodalaan shir ku qaban karnaa. waa xaaraan, sharci darre ah, xadgudub ah, dastuurka lagu xadgudbay. baarlamaankana waa u sacbiyeen. anna waxaan isleeyahay sacbintaas aqoon darro ma hayso mase laablakac. ayaga xaqu ma laha. moodalka siyaasadda lagu jaangoonaya waa baarlamaanka askara. dastuurka waxaa noogu yaala qodobo kala guura. qodobada kala guurka lagu dhaqmaa. aniga ma rabo siyaasad dhan inaan dhex galo. qodobo kala guuraa noo yaallo. qodobadeenna waa noo cad yihiin. clear waxaa keliya aan tilmaamaya waxay tahay haddii xaaladda iyo wakhtiga ay isdiidaan waxaa jiro habab oo la yidhaahdo isfaham. marka dastuurka ha lagu laabto kaas ha lagu dhaqmo. waayahay doctoreso hodan, gabagabadii maxay tahay fariintaada? maxaa kusoo gabagabaynaysaa? waxaan kusoo gabagabeynayaa 3 qodob. wakhtigan xaadirka ee cakiran soomaaliya oo dhammi ay dhegahooda iyo indhahooduba ay furan yihiin, waxaan kusoo gabagabeynayaa in la ilaaliyo saraynta sharciga. waxaa keliyaoo dadka kala saara waa sharciga. xataa wadamada inagu Soomaaliya yaan la iloobin, waxa la oran jirin umulbaa iloosho dhowa. historigeena ama taariikhdeena dhow waxaa weeye waxaa ka buuxa isqaqabsi, isdilid, dagaal. ma rabno waxaasoo kale inay soo uraan ama ay dadku dareemaanba. marka waa in Soomaaliya maaha wadan caadiya, waa wadan dagaal soo maray, institutionskiisii burbureen, constitutionkiisii uu meel ku gaar yahay. marka waxaan aad iyo aad u boorinayaa saraynta sharciga, ama dhinaca siyaasadda ha noqoto, ama dhinaca dhaqaalaha ha noqoto, ama doorashada ha noqoto. waxaan kaloo aad iyo aad u boorinayaa waxa dadka keliya deeqa cadaaladda iyo waxa deeqa isfahamka iyo kalsoonida. waayahay aad iyo aad umahadsantihiin. waa mahadsantihiin aad iyo aad. waa hagaag. kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan daahir cismaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ee hadda jirta, doctoreso hodan saciid ciise oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, sidoo kalena ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, iyo abukaate zakariya yuusuf oo ah garyaqaan dhinaca sharciga ah, iyo ducaale aadan maxamed, wasiirkii hore ee hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya. guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. aad buu u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu diyaariyey magaalada Nairobi. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac. golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaano looya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go'aan uga gaadhaan in ooda laga qaado iyo in kale 400 maxbuus u dambeeyay ee ka tirsan kooxda Taliban, si arrintan ay dariiqa ugu xaadho wadahadal toos oo ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi Afghanistan. waxaana arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani. kulankan oo isugu yeedhay kadib markii su'aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dembiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu sii daayay isagoon samaynin wadatashi qaran. mas-uuliyiintan Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ah ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo ergey oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hogaamiyeyaal kale iyo weliba siyaasiyiin, kaasi oo dowladda lagu siin doono talo ku aadan waxa ay ka yeelaysa maxaabiistan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qaybgalaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. Maraykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabataynta hubka ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taasi oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigayo heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaadhay sanadkii 2015. hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaridad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a waddamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Maraykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan. hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo, amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan.
arrintan maraykanku uu ku raadinayay in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ku doodaya in iiraan ay waddo kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisanimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba. aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka noo akhrinayay. haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa. idaacaddeena caawana dhegaystayaal intaas ay ku dhan tahay. intaan mar kale kulmi doonno waa Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin la sidaa iyo nabadgelyo. tani waa ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami ah ee dowladda Maraykanka. Aloysiin Debati oo horey u ahaa sarkaal degmo ka tirsan Jamhuuriyadda Rwanda ayaa loo doonayaa inuu ka qayb qaatay xasuuqii 1994 ee ka dhacay Rwanda isagoo adeegsanaya awoodiisa markii uu ahaa duqa magaalada Kisumu ee degmada Kiboya ayaa Debati waxa lagu eedeeyay inuu hagayay koox iyo ciidamada bilayska qaranka si u baxsadaan shakhsiyaad u cararay buuraha gobolkaasi ee Besesero kuwaasi oo doonayay inay ka baxsadaan rabshadaha. qiyaastii muddadii 100 maalmood ahayd ee rabshaduhu socdeen, weeraradan ayaa sababay 10,000 oo dhimasho ah iyo tiro aad u fara badan oo dhaawac ah. dembiyadaasi iyo kuwo kaleba ayaa keenay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Rwanda oo haatan loo yaqaan International Residual Mechanism for Tribunals ay Debati ku eedeysay dembiye xasuuq iyo dembiye dagaal, waxayna soo saartay amar lagu soo xirayo. Maraykanka ayaa iskaashi kala sameynaya dowlado kale, qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ah ee Residual Mechanism si ay ugu adkayso Debati iyo kuwa kaleba inay sii wadaan inay ka baxsadaan cadaaladda. si taas loo gaaro, Maraykanka ayaa ku bixinaya abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $5 milyan macluumaadka sahli kara soo qabashadiisa. haddii adigoo ama qof aad taqaanaa uu hayo xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa Aloysiin Debati, waxaad xog warankaasi u bixin kartaa ayadoo la ilaalinayo aqoonsigaaga. fadlan booqo safaaradda ama qunsuliyadda Maraykanka ee kuugu dhow ama website-ka qunsuliyadda si aad ula xiriirto xafiiska ammaanka ee heer gobol. email u soo dir barnaamijka Maraykanka ee abaalmarinta xogaha dembiyada dagaal oo ah wcrp@state.gov ama la soo xiriir adigoo adeegsanaya WhatsApp-ka nambarkiisu yahay +1 2 2 975 5468. waxaad kalood booqan kartaa bogga Facebook-ga ee ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama waxaad la socon kartaa barta Twitter-ka ee ciwaankeedu yahay www.twitter.com/warcrimesreward si aad u hesho sawirada kuwa baxsadka ah ee la doondoonayo. dhammaan warbixinada la isku halayn karo waa la baari doonaa iyadoo aqoonsiyada dhammaan dadka macluumaadka u keena sida qarsoodiga ahna la ilaalin doono. taasi waxay ahayd ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami